السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل مقال عصب كسور دبادة جنالك إفراح بشير كجن ضمان انت شنطة صومالي ميل كست أدوية أجوكتين وإدين سلامي ولا ليال ما انت وحان ما انت سميسانينا أصحاب تيدا وحان سميسانينا ستيك أما بسكيتي ayaan sameysanaynaa oo aad u macaan badan oo fudud oo asxaabta i soo weydiisteen ayaan rabaa maanta inaan sameysano. Waxaan idin tusinayaa si fudud ayaan idin tusinayaa steega hadii aad rabtid ama biskeetiga waa hal labadoodaba. Steeg waa dhigi kartaa, biskeetin waa dhigi kartaa. Hadii aad rabtid inaad sameysatid waxaa ka soo goosataa hilibka qaybtiisa jilcan ayaa laga sameeyaa. Hadii aad soo goosatid qaybtiisa hilibka oo lo'da ama geelka hilibaha way kala yihiin. qayb waxaa jirta adag iyo qayb jilicsan. qaybta jilicsan ka soo gooso mana ku dhibaayo sameyntiisa mana adkaanayo si wuxuu ugu soo baxaya oo soft ah oo adinkana ka helaysiin. asxaabteyda soo dhawaada janaalkiina waaye milinkiina waa ismartiyeynina sida quruxda badan aad igu soo duceyseen walaaltinimada ku jirto. آمين أيان ليه هاي إذا كجمع هاد علينا أصحابتي أنتي هوري نولا جوكتي أصحابتان عصب سووا ذا هذا وحاتين ولا على هيجا وإذا وضع على هاي الأمانتينا ميل كستدوين أجوكتين وحيدي رجينا عافي ما تقب ولا على هيجا قالجا سو دباد هذا نوحان سميسانينا ستيجي أيان سميسانينا أصحابتي ماشان وحيجوا جرب بسباس وحيجوا جرب قاندان وبحذو وبسباس يجوا جرب هل كان وحيجوا جرب grille mauste ayaa igu jira xabaaji oo loogu talagalay waaye grille mauste la dhaho ayaa halkan ku jiro. waxa halkan igu jiro liin iyo filfil oo kaligeed ah oo wax yar aan meeshan ku soo shubtay. halkan waxa igu jiro xabaaji oo masala ah oo isku dardarsan ayaa ku jiro oo adiga xabaajiga ah haysatid isticmaal. intana waxa ku jiro xabaaji kari oo wax yar ah ayaa halkaas ku soo shubtay. meeshan waxa igu jiro subagaasiita oo ah 70 gram ayaa inta igu jiro. halkan waxa igu diyaarsan toonti iyo kabsar caleentii. haddana waxaan gudaha u sii galeynaa wada qaabkan isku dari lahayn. waxaan ku darsanayaa cusbo yar ayaan ku darsanayaa iyo wax yar oo maraq digaag ayaan ku darsanayaa asxaabteyda. haddana waxaan gudaha u galeynaa habkan isku darsan lahayn. waxoo dhan waxa ku wada shubanaysaa halkan saxankaas gudan ayaad ku shubanaysaa. waxoo dhan markaan isku qasto liin ayaan wili ku sii darsanayaa jeex liin ah ayaan ku sii darsanayaa si oo maxaa la dhahaye ma sha Allah liin dhanaantana caafimaadna way leedahay cuntadana waad ogtihiin dhadhan fiican ayay u yeelaysaa. liin kale qalalana way noogu jirtaa iyo filfishi oo meesha aan ka maqnayn. cusbada waxa ku darsataa qaandada زائد uma buuxo ayaan ku darsanayaa. qof kasta dhadhankiisa hadii raaco ilaan qof kasta dhadhan gooni ayuu leeyahay. cusbada badanna sideedaba caafimaad ma ahan. dhiikar ayaa laga dadka dhiikarka qabo maba anfacayo inuu cusbo badan isticmaalo. cusbo waxa jirta dadka dhiikarka qabo loogu talagalay ayaa jirto. asxaabi waxaan ku sii darayaa wax yar oo liin dhanaan qoyan. liintaas aan wax yar ku darsado. liinta jabka dhan uma baahna in lagu darsado. wax yar ku darso. asxaabi waxaan ku darsanayaa saliid cadeey 2 qaando. haddana waxaan ku dhex darsanayaa toontii iyo kabsar caleentii aan isku soo shiitay ayaan ku darsaday. waxoo dhan waa isku wada qasayaa. waxoo dhan hal mar isku wada qaso. meelna kaaga ma badanayo marka hal meel aad isku weelka aad ku wada qastid wuxuu dhan wuxuu noqonayaa wax oo isku dheelitiran ayuu noqonayaa. haddana waxaan dhadhaminayaa dhadhankiisa ma sha Allah. steega waa kana aad u jeedin si qafiif ayaan u soo jarjartay kadibna waan soo garaacday asxaabta. idin ma tusinin markay aan garaacayay
waan ka xumaa way ii suurtageli weysay marka hadda waa kana sidaas khafiifkaas aad u jeedid waxoo dhan waxaan usoo jarjartay sidaan aad u jeediin si fiican ma aragtay markaa saas u dhexgelisid waxaan dhigaynaa ilaa 20 daqiiqo si uu dhadhanka uu si fiican iskugu dhexgalo waa sidee tahay asxaabay 20 daqiiqo kadib haddana waa dubanaynaa waxaan halkan ku darsanayaa subagii haddii aad aragtid saliid waa ku darsan ka ku duban kartaa zaaid ha iskiga kulaynin asxaabtayda haddana waa sii gedinaa waxaa lagaa rabaa inaad gedgedisid haddii kale maxaa la dhahaa si fiican suu ugu karo asxaabtayda dabka kale dabkaaga haddii uu aad u kulul yahay dabka waa u kala yahay horan waa idinkugu sheegay dabka haddii uu macnaha zaa'id u kulul yahay lambarka waxaa ku dubataa lambar 3 hadduu dabkaaga uu dhexdhexaad yahay waxaa ku dubataa 4 marka waxaa la rabaa si deganaan inuu u karo oo si fiican u karo si uusan u adkaanin oo u jilco oo si fiican u karo ayaa loo baahan yahay ma sha Allah haddana waa kana wax yar uu dhacaan biyo yar ayuu dhalay asaga ayaa gursan doono waan gaduudinaynaa wax yar geesihiisa muhiim waa inuu noo karo oo soofti jilicsan inuu noo noqdo asxaabtayda markii oo biyihiisa uu dhuqsado waaba arkaysaaba subagii oo sidiisa ahaa soo baxaayo dhankan kala u gedinayaa intuu biyihiisa uu leeyahay ka bixin markuu biyihiisa uu ku karo markaas intii oo saliida ay soo baxdo markaas ka bixinay hadii la yiraahdo hadan dadka waa ka saarayaa زائد مركو خفيف كأو يهاي ما فيعنا وحير وحافي عن إنه إسهايستو ونعليسنا إهان وصن خفيف زائد وصن إهان خفيف كالجيح من ربنا إنه وصن إهان يا لو بهاي هاي وفي عين هاي قد هذا ولا سوق لا يا والله ما مشاكل قرب لكن بستيكي ميدا دما عمرنا بسكيتي هاي حقود إنك بسكيتي يا بستيكي محيط اللي هي مركز على الجويد ها بسكيتي على مركو ثانية أيه بستيكي إنه على نلعب كلمكات الجديد ساسكي لكن بستيكي كان معنا بسكيتي ما معنا هالكيلة وجروب إنتي لوا صعبة بستيكي هلا أبصر مالك أصحابي كومنتي وعصوغة بستيكي ميا بسكيتي وا محلها كتبان ميا مستكبان هالكيلة وا بسكيتي بستيكي هالكيلة وا سيرتكم كلامه كتبان محلها مركو عاجة كتبان مركو أرواح يا ميا بري أرواح كريم
marka hadda markii oo busteek uu yahay markii kow la saarayo waa dhinaca koowaad ay markii steakna waa noqonaa markii la gediyo waa kaas asxaabteeda walaalkii waa idin sheegay steakna goormuu noqonaa steakna asagii le waay markii la cunaayo uu noqonaya steak baalkan waa la sugi la'yahay intaas dhan waa kaftan asxaabta maanta waxaa waaye waa lagu baasteysanaa waa siday tahay wallahi idinka anaa idin joogo waxaa kartiin hawlwelina anaa idin cunaaya waa dhamaad asxaabteeda u iyadana haduubto anna waa dejiyey waa siday duubtanna waa dejina saasa asxaabay iigu soo duceeya iigu soo tufa waa dhamaatay maasha allah kuley kaamirad gadaasheeda taagana halka maalin aan kaamirad soo hor istaago waa dheesinkan wixii meesha ku jiray dhanba isle qabaa zamka sii iyo dhibba horta hadda buskeet mida hadda koor wuxuu dhahay gabadhaan wuxuu yiri buskeetka ku celisay gabadhaan wuxuu dhahay oo maasha allah oo cayilan wuxuu dhahay waxa dhanba ee samayso cuntada dhanba iida isku gadiso Allah yaa u sheegay inaad wax cunoonin nin sharmaa ka laa meeshaan taagan dabka samarkii looga dejiyo iskuroonay muruqata waayo u dhahay tan waxa dhanba la kariya iida isku gadiso waxaa samaysta buskeetka maalinta jimcaha ku aadistay waa ka jinkaala dheel bada markii laga soo baxo aybo allahu akbar iska dheh Soomaaliya jimcihii markii la gaaro waxaa la sameyn jiray baasto ala sii loo jeclaay maanta baasto ala kari baasto aada loo jeclaa baasto macaroni baasto dhaadheer markii la sameeyo buskeet ka waranay ay isku fiicnaa allow yaa isku beega waa isku baahan yihiin waa siday tahay ku dhah samaysta asxaabi basbaaska mashiinka lagu shiido asxaabi waxaa ka macmi taqaani basbaaska kal imooyaha lagu tumo kal imooy ma yaala hortiyo kal imooy waxaa soo birayaa soo alwaax xamara laga keenaa meel yurub waxaan oolin ma lahan qac ka siiso lin dhanaantaada jig ku siiso tuun ku darbe toontaada ku darso siday tahay isku qabso maasha allah ay biscuit misnaqdi عادي ما asxaabtayda waa soo diyaarinayaa markaasaan idiin tusin doonaa haddii ilaahay yiraahdo oo la socda أصحابي ما شاء الله وأجيدين وبسيل سان أي أوبر برايساس وأجل عني هاي زائد ما شاء الله وأجيدين وحيدين دباية معها ما شاء الله وحن رجينا يا إنك بوجتين أو كلي كومنتي جنوب ضعفة هدي إلهي يرهلو سوبر والله ما شاء الله عن سنو يا
asxaabtayda waxaan rajeynaa inaad ka heli doontiin insha allah janaalka soo booqda asxaabtiina ku sheergareeya insha allah waxaan rajeynaa inaad ka heshiin insha allah commentigiina subscribe-kiina like-tiina iyo share-kiina wuxuu noo yahay dhiirigelin asxaabta waxaan rajeynaa inaad noo sameyn doontiin insha allah khayr badan ayaa idinkaga tegay maca asalaamo maasha allah waad ujeediin sidaan ayaan u qurxiyey gurigaaga maqaayadaada yar jikadaada yar ila maqaayadaada way mogtahay jikadaada yar qurxso familkaaga kaga farxi maasha allah waa kana habkaana u samaysanaysaa aan usoo sameeyey waa hab aada u qurux badan maasha allah aan u sharxay midna meeshaas ayaan soo saaray qaybtii kale waa 1 kiilo oo asxaabteeda waxaan sameeyey oo sweeti ah marka waxaan rajeynaa inaad ka heshiin asxaabteeda sida quruxda badan aada noola socotiin waad ku mahadsantihiin khayr badana idinkaga tegay maca asalaama